السلام عليكم. halkani waa channelka Cabdicasiis Boardle ku soo dhawaada qisooyin cajiib ah oo aad aqoon badan ka kororsan doonto. qofka muuminka ahi waa inuu ku qanco wixii uu Alle u qoro. nin shaqaale ah oo uu aad u hooseeyay mushaharkiisu misana shaqo wacan oo aan daalin oo si fiican u guta waajibaadkiisa shaqo ayaa jiray. wuxuuna ninkaasi mas'uul ka ahaa walaaladii, hooyadii iyo carruurtiisa. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayuu shaqadii ka maqnaaday. markaas ayaa ninkii uu u shaqayn jiray naftiisa ku yidhi, alla ilaahay, ninkani nin shaqo wacan buu ahaa, mushaharkuna kuma filnayn ee aan u kordhiyo. subaxii dambe markii uu shaqadii yimi ayuu ninkii uu u shaqayn jiray siiyey mushaharkiisii oo waxoogaa uu u kordhiyey. ninkii shaqaalaha ahaa muu ku ammaanin ficilkaas ninkii uu u shaqayn jiray ee shaqadiisii ayuu iska sii watay. muddo kadib ayuu haddana maalin kale ka maqnaaday shaqadii. ninkii uu u shaqayn jiray ayaa cadhooday ama xanaaqay, wuxuuna yidhi, ballan ilaah waxaan ku qaaday inaan ka jaro intii aan u kordhiyey. markii uu ka jaray intii uu u kordhiyeyna ninkii shaqaalaha ahaa kama aanu murmin ee shaqadiisii ayuu iska sii watay. ninkii taajirka ahaa ayaa yaabay oo weyddiiyey ninkii shaqaalaha ahaa, waar heedhe, maalintii hore mushahar ayaan kuu kordhiyey oo kumaad farxin, maantana waan kaa jaray oo kamaad cadhoone, bal ii warran. ninkii shaqaalaha ahaa ayaa yidhi, maalintii hore ee aan maqnaa xaaskayga ayaa wiil ii dhashay oo aan ku mashquulsanaa. markii aan soo noqday aad mushaharka ii kordhisayna waxa aan idhi, wiilkii kuu dhashay risaaqadiisii weeyi oo ilaahay ayaa kuu diyaariyey. maalintii dambe ee aan maqnaana iskamaan maqnayne, hooyaday ayaa geeriyootay ama dhimatay. markii aan soo noqday aad iga jartay mushaharka adigoo cadhaysanna waxa aan idhi, hooyo way dhimatay oo mushaharkaas kaa go'ayna wax kale ma aha ee risaaqadeedii ayaa go'day. markaas ayaa ninkii taajirka ahaa uu aad uga murugooday qisaska uu uga sheekeeyey ninkani. haddaba walaaltani waxay inoo sheegaysaa in qofka muuminkaahi uu ku qanco wixii ilaahay u qoro uuna garto. naftuna waa damaaciyad ee qanaacada aan ogaanno.